degmada khayrka badan leh Axmed Dhagax ama afka ka yiraahdo ama kor u yiraahdo ama hoos u yiraahdo qiimaha leedin garanayaan gobinatiin in og baanahay waxaan ogahay dadka halka ku nool maalintii aynu ololaha halka ka sameynay maalintii aynu halka ololaha ka sameynay mar baan soo maray meeshii aynu halkan isugu nimi xalku sidoo ahaa dagaal la isu geegeeyo dawladda hoose ee idinka ayaa Ilaahay ku suuro geliyay inaan nadiifsano haddaynaan maalinta ololaha isugu iman lahayna halkan iyo duruufteeda inuu aragno way adkaan lahayd waxa la idin qabtay aad buu yar yahay markaad eegto waxa mudantiin ay tahay in la idin qabto alxamdulillaah intan bay Ilaahay baan ugu xamdi naqaynaa haddii la hayn laana wadada halka ka kacdo buurta fuusha waan sameyn lahayn haddana golaha deegaanka nahay laakiin waxaan Ilaahay ugu xamdi naqayaa maanta in hooyada dhinaca ka degan ilaaladaas aanay ka warwareyn meel ay boodu soo marto waxa kaloon ku faraxsanayd mar inay maanta 30 sano ka bacdi ay aragto wax yar oo kamida cashuurteedii wax loogu qabtay inta ka badan baa haday loo qabto bir hore loo qabto golaha deegaanka Hargeysa maanta ma leh salaadiintii caaqiladu way sheegeen waa waajibkeega waa shaqadayada annaga soo doonanay inaanu khaadimiin noqono idinku namaydan soo doonno guriyayga nagamaydan soo saarno kaale sarax namaydan oran annaga idin soo doonanay qofkuna hadduu ummadda isagu soo doontuna waan idin shaqeynaya waxa Ilaahay hortiisa maalinta la qatay la qaaway uu tagaya isagoo ummaddu yiri waan idin shaqeynaya la weydiinayo miyuu shaqeeyay mise uu ka shaqeystay Ilaahay waxaanu ka bareynaa in Ilaahay naga dhigo kuwa Ilaahay la hortagaya Ilaahay oo kamaana shaqeysana waan u shaqeyn waa kaloon ku faraxsanahay ilmaha yar xaafadda ku nool shalay markuu halkaas soo istaagay biyo marayaan inay hooyadii warwareysay maanta laakiin uu ku korayo haba yaraatee waa bariishkii yaraaya cashuurteeda lagu dhisay inuu ku korayo dabeetana uu dul marayo biyo hoos maraya halka aad caruurta uga baqateen ee inay ku dhacaan oo namba imka arkayna shirkadda Habboon hadaan golo deegaanahay waxaan u sheegaynaa maanta soo qiime qaan sheegta kan bari ma haysa damana bilow waa dhinaca idin marka hooyadu ilmaheedu halkan ka baxo halkaana ha u talaabo iyadoo warwar ka qabin in marka ilmaha yar uu kaga dhaco doox gidaarka weyn ee noo soo baxa oo qurxisanaynaa fariimin ku qornaa wadaniyada in artiisa gudoomiyaha u yeeri doona magaalada nadiifsa cashuurtaada bixiya adaa dhul kala gidaar weyn baa noo soo baxaya gidaarkana fariimaha wadaniyada ayaynu ku qoranaa insha Allah taala waxa ka hadasheen marka xagga looga talaabo ilaalada inaan qorshi jirin guriyada dhismaana waan arkaya qolada dhulka waxda dhulkaanu soo direynaa iyaga imanaya gudoomiyaha dabagelaya halka ugu horeysa ee la yimaado ee la eego dhulkan haddaan cidina isku haysan qofka guriga u dhismay qorshaha magaalada uu waafaqsan yahay wada aanu ku dhaxoolin waa loo process gareynayaa faylkiisa isaguna cashuur bixiyo noqonaya cashuurta markuu bixiyana adeeg kan ka badan buu heli doonaa insha Allah taala Hargeysa khamiis buu dhamaysanaa xaafadani maalintay leeday maalin sameysade maalinta ragana ku halaynin adiga iyo caruurtaada iyo hablaagu soo baxa mafiiqda soo qaata baad iyo caadada meel isugu keena guba dawladda hoose timi gudoomiyaha degmadaadu la xisaabtan meedii yimaada maalinta hawsha qabanaysaan meedin loogyahay baahidiina ma ka warhaya baahidiina ma soo gaarsiinaya xafiiska xildhibaan Siciid jaamacoodu ku qoran u taga u yeedha u sheega baahidiina isaga deetna golaha dhex geenaya waxa kale Ilaahay ugu xamdi naqaya maalintii aan doorateen Eray Axmed Dhagax aan ka waayay aan golaha ku soo bixin waan naxay marna
وواحد نحد ما هذا إلى إنكوا عرفا صباحي لكن واحد السري هذا إذا كبر رقته أرمي رحمة نحتمنيان وأرمي رجين إن مدين وحس إلهي وحمد نقيا إلى إن مديني نهي أو أهانه والله سيدي الدونان هوجها الله سيدي الدونان هنوضب القرآن سيدي الدونان هو دونان عليها نوقبتان والله باني نجد شو تشيلنا لدين شقينه خادمين بانو يدين هارنا نكي الصبح تضيط مقا حلوان كاملة إنا أنو خادين نقولوا مدي سدونية إسايا وطالع وحنسي أضيوها وقدوميه وديوها وماير وقوها ومضى مساكين تا إن لو شقيو ولو أديقو ولو شقيسان هادان أركو ورهدان أركو شقدان دين شقينيو إن عقاها الله يقبتي وقمعا إن دقدقاتشو قمعا الله يقبتو وإنها الله يسابو دقاها الله يقبتو عنها الله يقبتو والله بالله تالله انت نفتي يقول شرتو ومضى إذا نكا وشقيني يعني قولاها حل دبعنا إنه واحد كل تليا waxaan ku matalayaa inay igu ilaashaan inta aan wadada saxda ahayo waxaan ku matalayaa inta aan musuqmaasuq sameeynahayn waxaan ku matalayaa inta aan ummadda ii dirtay inaan maayir u noqdo aan u ahaado waxay u fasaxayeen sidoo si jaamac sheegay maalinta aan wadada ka leexdo in la iga qabto ummadda ma aha qabashada la iga qabay ummadda ee la oranayo wadada waad ka leexatay waxay badbaadinayaan aakhirada waxay igu soo celinayaan jidka toosan haddaan maqli waayo markay raadaan soo bayd waad leexatay haddaan maqli waayana waxa ii nasteexo ii nafo aakhiradeedu wanaagsan inay xilkayga qaadaan bay wanaagsan dabeetana markaa iyagoo aakhiradeeda ii turay inaan ummadayda meel kale iyo maalin kale inaan ummadayda ugu adeego anigu horaan u sheegay ummadayda hadday igu qabsato inaan dhuuxaadho u noqdo wallaahi waan u noqonayaa oo bilaahi waan u noqonayaa nin ay macno u samaynayso nin ay macno u samaynayso maayar baan ahay iyo maayarnimaha lagu ammaano ama magaca ku helana walaanan ahayn wuxuun baan isleeyahay oo aniga i farxad geliya maaha aniga iyo magacayga iyo waxa ammaanta golaha deegaanka cabdikariin loo soo jeedinayaan imakaan leh ammaan isugu leeyahay maaha midu keliya maaha golaha wada leh golaha wax wada qabta golaha shira golaha go'aamiya annagu shaqadii leeyri qabto uma qabanayna waxa sanna farxad gelinaya markay hooyadu halka marto ee aayar halka ka talowdo iyadoo biyo ka warwaray ay markay dul maraysa aragto cashuurteeda ama ha u yaraato ama ha u badnaatee in boqolkiiba 60 wixii halka galay ay cashuurteedii ahayd ayaa anaga farxad gelin waynu guulaysanayna maalmaha adag ee suuqa waahayn kamid yahay ina soo marayna waynu ka dabaalanayna maalmo wanaagsan oo markay dadku meel wanaagsan ku socdaan bay qof bilaa imtixaan meeshu ku socdo ku tagaa ma jiro ummad meesha u socoto bilaa imtixaan ku tagtaana ma jirto ummadu waliba halkay maanta adduunka ka joogto kadeed iyo dhib wadankeeda Ruwaandaal ayaa la hadalhayaa halkay u soo mareen way xasuuqeen horumarka hayaan way xasuuqeen laakiin de meesha dheer bay u soo mareen inaguna de waxaynu u marinaa jidda qabyada taalaana way baranta laakiin waxaanu jecelahay qabyadaas 30 ka maxaan ku 5 sano inuu joogno inay inteeda ugu badani inay qabsoonto samir baa loo baahay qofku bini aadamka uu arkaya qabyada taala iyo waxa la qabanayo markuu kala gooyo in loo dadaalayo waarkaya laakiin waxa laga yaabaa inuu nin maalin walba ku sheego waxa wanaagsan wax xun ku sheego isagoo ujeedo gaarayso kale dhagaaynu ka furaysanayna cashuurtaynu bixinaynaa gamahaynu isqabsanaynaa ololayaashaynu wadaynaa heegan baynu gelaynaa magaaladeennaynu dhisanaynaa ummadeennaynu midaynaynaa hargeysa mid bay noqonaysaa ninka isla kala qaybqaybi wallaynu ku guulaysanayn meel baas isagaa ku tegaya isagaa ilaahay jirkiisa kala qaybqaybin doonaa inagu waynu midaysnaanaynaa insha allahu tacaala